hay-adda caafimaadka bulshada ama nidaamka caymiska caafimaadka ee SHA ayaa ku dhawaaqday inay si ku meel gaar ah u joojisay adeegyada qaar ka mid ah xarumaha caafimaad ee ku yaala gobollo kala duwan, taasoo micnaheedu yahay in xarumahaasi laga joojiyay ka faa'iideysiga nidaamka caymiska caafimaadka qaran ee SHA. warqad rasmi ah oo maanta oo Talaado ah ka soo baxday agaasimaha guud ee SHA Dr. Mercy Mwangangi ayaa lagu sheegay in tallaabadan la qaaday iyadoo la adeegsanayo awoodaha uu siinayo qodobka 48aad qodobkiisa 6aad ee xeerka caymiska caafimaadka. inkasta oo aan la shaacinin sababta rasmiga ah ee shaqada looga joojiyay, xarumaha la hakiyay ayaa gaaraya tiro 10 ah, iyadoo Mandera ay tahay ismaamulka ugu badan oo waxaa laga xiray ilaa 8 xarumood oo caafimaad. aan isla eegno gobolka waqooyi bari xarumaha laga xiray. Mandera 8 xarumood ayaa laga xiray, kuwaasoo kala ah Asif Medical and Health Center, Ayale Medicare, Desert View Healthcare Services, Equity Afya, Carl Health Nursing Home, Mama Ebla Nursing Home, The Tranquil Hospital iyo Wante Nursing Home. halka Garisana laga xiray ilaa 3 xarumood oo kala ah Al-Baytul Tiba Hospital, Garissa Doctors Clinic iyo North Gate Hospital. shalay ayay ahayd markii wasiirka caafimaadka Aadan Ducaale uu difaacay wasaaraddiisa kadib markii maalmihii la soo dhaafay la isla dhexmarayay xarumo caafimaad oo la sheegay in la siiyay lacago malaayiin shilin ah iyadoo loo sii marayo nidaamka caymiska caafimaadka ee SHA. Facility, both public, private, faith-based, have individually contracts with the Social Health Authority. So this is a final warning that we are watching. Any facility, any doctor, or any patient to be involved in fraudulent activities will be held liable and will face the full force